magacayga Faadma Cabdinuur Xaashi baa la yidhaahdaa Madeera waxaan ka deganahay Buula Tawakkal. hooyo say wax u dhaceen waxay noogu dhaceen hadda baalka aniga sawirkiisa baan arkayay iyo maqalka Soomaaliya dib ka geystay iyo waxyaabahaas maqalkaasaan haysta waan gartay galabta 7 saac markii hay'adoo salaada casar la galay anagoo banaanka caruurta ku ciyaarsiinayo asagoo duulay soo galay geed korkaygu ku soo degay canug yar oo agteeda ku ciyaarayay buu ku soo gooday marka aniga sawirkii baan haystay markaan arkay baalkii waan sasay baalkina wuxuu galay inuu ilmi iga qaato ilmi qaar guriga ku xareeyay markaan guriga ku xareeyay gurigu iga soo daba galay ilmo yar yar oo banaanka ku ciyaarayo iga hormaray ilmi baan hoostaan gashay markaan hoosta gashay aniga dushaydu ku soo degay marka aniga waxba iimayno gaarsiinin canugina waxba muusan gaarsiinin kiibaan la soo orday intaas nabar baan ku dhufanayno waan la dagaalameynay markaan kuwii guriga soo galay kuwa banaanka joogo iga hormaray hadana kuwii baan intii aan kulay garaankayga Ilaahay raxmaanka uu ii badbaadiyay kuwii kala guriga soo galay adigu muddo 5 daqiiqo camal aan anagii asagii aan dagaalameynay laba gabdhood baan ahayn marka labarana waan gaarsiinay Ilaahay raxmaanka uu naga badbaadiyay laba jeerna gurigu nooga soo daba galay markaan canuga guriga galiyo mar walba gurigu soo galay damcay inuu soo galo marka albaabkii baa garbiisa qabsaday bahal aad u xoog badan oo ilaa si fiican ma aanan fiirin oo waan laakiin marka uu horeeyo soo tagay sawirada anigu haystay oo arkay inuu ilaaha bahalkaas noocaas u rahaa midabkiisi caruurta ma sheegaysa anigu ma sheegi karo oo ma dhigi karo maxay ahayd ma dhigi karo midabkaas waa laakiin bahal aad u xoog badan oo markuu igu soo degana miisaankiisa uu aad u weeyay markaan ilmaha guriga la galana baalashiisa ay dhulka taabanayaan buu ahaa kulay ilaahayna anagu waxba naguma gaarsiinin wax dhibo hadda uu na gaarsiiyana malaha laakiin dagaalkaas buu nala galay alxamdulillah waa tahay adiga ma kala taqaanaa shimbirka nooca uu yahay ma taqaana ma gorgorba mise waa galleer gorgor buu yahay anigu diyaraantaydi baan arki jiray inta weynaadayna ma arag buuna igala xawli badnaa bal zaid u weyn buu yahay gorgor buu yahay sida qaad gorgor buu baxay afkiisa uu soo gaday diyuhu sida zaid loo dheereeyay anigu intaan arkay laakiin weyninkiisa qiyaas waxa ku qiyaasi karaa anta la adigu inuu ka weeyo isku xog badan ma kama yaro waa tahay markuu weerarka uu inku soo qaadahayay jawiga sidoo noqday haddaad wax yar dareenkaada bulshada la wadaag maxaa dareenkayga sheegay aniga dhanba waan sasay waxaan sameeyay meena wax ka qabtaan garan waaye qaylo iyo canugaan qabo ma ogiyo wax kale oo sheegi kara oo maanta ilaa teertaan aan kula hadlayaan bagariiraya oo ayadaan garan xitaa qalbigayga uusan joogin caruurta iyo annaga bas aan ahayn wax hore yaad joogay wax iga dhawaa midna ma lahan xoolo xagooda ma aadina caruurta ugu dagaalamay baalka ilmaha ugu dagaalka ugu socdo ma ogiyo wax hore iyo baalka ku leexanaya midna ma ahayn waa tahay weerarkaas uu ku geystay iyo dhibaatadaas hadda aad sheegtay marka laga soo gudbo bulshada reer Mandheera iyo dadka deegaankan suuf ilaa balad xawo oo arintan aan ka warqabin fariin intee leeg baad u diri lahayd kulay Ilaahay raxmaanka wuxuu qoray horta waa qadarin wayna dhici fariintan u diraayo Ilaahay raxmaanka baa keenay masiibo imaadayna laga taxadar way fiican tahay waxaan u dirayaa ilmaha hal ilaashadaan leh Ilaahay baan wax ilaaliyo rabbiga raxmaanka baa wax ilaaliyo midda kale mas'uuliyiin dawlad baan leenahay baalkaas aniga hadii garabta dadka xoog la ila joogi lahaayeen waa la diri karay waa la qaban karay intuu guriga igu soo galayay intuu ilmahayga uu maxaan ku raadayay aniga igu soo gulbayay intuu maxay ahayd intuu ku soo dawo ilmaha hoosteeda ku jira uu rabay inuu qaato wax badan baa garabta la qaban karaa xitaa wax ii soo gurmaday iyo wax ii imaaday iyo wax ay soo raacay midna ma aysan jirin Ilaahay raxmaanka ana badbaadiyo waxaan dhigaa ilmaha hal ilaashado wixii laga qaban karana laga qabto kulay wixii duulaan markuu ku soo gaaro in laga taxadaro oo la raadiyo oo meeshii u dambeysay meeshii maray la raadiyaa fiican anigu intaas baan dhigaa aad baad u mahadsantahay